runtii maanta wariye kasta oo Soomaaliya oo nool nasiib u leeyahay sababtoo ah wuxuu markhaati ka yahay goob lagu xasuusanayo saaxiibadiisii dhintay qof walba anaga naga mid dhiirigelinay maanta u tahay wuxuu dareemayaa maanta hadduu dhinto berri ubadkiis in la xasuusan doono arrintan waa bilow fiican iyo baraarug wanaagsan waxaan isleeyahay qof walba oo aragtidaan wax ku lahaa ajiro ka heli doona iyadoo bishii Ramadaan 10 dambe lagu jiro saxafiyiinta fikradan biraandirisay ee ka shaqeysay suurtagelisay in uu hirgalana waxay noqon doonaan dad legacy fiican ka tagay iyo xusuus fiican maalinta ay dhintaan hadal badan ma rabo inaan sheego waxaan rabaa inaan mahad celiyo xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya oo runtii aqbalay iskuna xilqaamay in la isku keeno caruurtii ay dhaleen wariyaashii Soomaaliya ku dhintay gaar ahaan Muqdisho ilaa 2007 waxaa jira wariyaal kale oo gobolada Soomaaliya lagu dilay ama ku dhintay programkan kuma jiraan fariintan meel badan ay gaari doontaa waxaa laga yaabaa dadka qaar inay si kale u dhigaan oo ay dhahaan warbaahinta lacagta inta ka aruuriyay lacag $20,000 gaaraysa gaarsiiyay dhalinyaradii ku guuleysatay ciyaartii Afrika ugu soo ciyaar kaalinta fiican ka soo gashay marka guddigaasna inay sii jiraan hawshan ay sii wadaan ayagana waa aan ka rajaynayaa dhibaatadu qofka ay taabato ayaa yaqaana haddii alla ku roo oo dareemi kara Cabdirasaaq Jaamac cilmi laftirkiisa markii cadawgii carruurtaan waalidkood laayay ay dhaawaceen oo dhaawac culus uu gaaray madaxtooyada laftirkeedu waa noo gurmatay barigaas oo Cabdirasaaq la soo daaway oo dibadda loo qaado gacan weyn ay ku lahayd marka maanta hadduu xafiiskii joog asaga iyo rag kale oo haddii alla ku roon yahay sida Cabdinuur oo wax badan saxaafadda asaguna tababarkooda iyo isku xirnaantooda ka shaqeynayay ay joog wiilasha iyo gabdhaha yaryar ee agoomada ah ee nala joogay ay dhaleen walaaladeenna naga baxay inaan ka dhigano gacal iyo xigaal oo wixii aysan noqonin wax iska xiiso oo maanta kali ah guddigana waxaan u sheegi lahaa haddaan joogteen karno in la joogteeyo oo meesha madaxtooyada iyo dawladda kaliya hadda lagu tiirsan yahay ay noqoto wax la iska aruuriyo tusaale waxaa loo soo qaadan karaa dhalinyaradii xulka qaranka ee da'da 17 jir ka yareed lacagii loo aruuriyay dawlad ma bixinin ashqaasha bixisay marka dadka muxsiniinta ah qodob kale oo arrintaa lagu fulin karana waxay noqon kartaa wariyaasha maalin walba war bay diraan noocuu doona ha ahaado ama hard news ha ahaado ama war arrimaha bulshada arrintan oo kale in warbaahinta loo bandhigo waxay dadka kale muxsiniinta ah ee hantida leh ku qaadaysaa inay awoonta wax taraan ugu yaraan 30 camera hadda horteyda taagan dhowr iyo 20 mobilna waxbaa lagu duubayaa marka warka noocan oo kale ah oo la baahiyo dad badan oo ogeyn baa waxay ku qaadaysaa inay yiraahdaan alla ilaahay agoomaa jira laakiin agoomaha iskuma jiraan agoomihii warbaahinta yaa kuwan loogu yeeri karaa marka cid walba ka qayb qaadatay hawshan aad baan ugu mahad celinayaa agoon hadda kuma hadlayo oo kama hadlayo in agoon lala joogo faa'iidada ay leedahay iyo ajarka laga heli karo laakiin hal arrin aan inaan tusaale u soo qaato wariyaasha halkan jooga ama safkan ha fadhiyaan ama kaamarooyinka ha duubaan waxaan u malaynayaa kulli waa waalidiin ilmaha u jooga ilmahaas waa iska taqaanaan carruurta inta badan ciidda wax weyn ay u tahay ciidoon la gaarin ay ka sii fikiraan haddii gabar tahayna waxay tidhaahdaa ama goormaan labiska la ii gaday marka qiyaas marka kuwii ay walaaladeenna dhaleen oo maanta aabba ay yidhaahdaan goormaan la ii gaday dharkii aysan jirin marka farxaddaas runtii waa mid loogu mahad celin karo guddiga hawshan ka soo shaqeeyey wiilal iyo gabdho isugu jiray hooyooyinka iyo ehelka carruurta la socda saxaafadda madaxa bannaan ee maanta u taagan ka qayb qaadashada hawshan كتجين واحد يقول سلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام كدب مركا لقى صوت تقوم ثلاثة حفيزك ورفافنتي حرير وربعين المحتوين جمهورية الفدرالية الصومالية. عبد الساق بلاغ أهان برنامج كان وحو إلي هاي درين جونية. waxaan kamid ahaa dhibanayaashii dhibaatada ay cadawga ku gaarsiiyeen gudaha magaalada Muqdisho laba dareenba way ii leedahay waa mid koowaad waxaan dareemi karaa qof dhibaato marka ay soo gaarto uu dhaawacmo caruurtiisa iyo ehelkiisa saameynta ay ku yeelan karto dareen gooniye ii leedahay oo waxaan soo arkay oo dareemi karo waa mid labaad oo dareenkii ii leh oo ayadan aan si toos u arkay waxa kamid ah muhiimadda ay leedahay marka la isgarab istaago ee la iscaawiyo sida uu qofka uu dareemayo noloshiisa waxa ay ka bedelayso muhiimadda ay leedahay
labadaas dareenba munaasabadan way ii leedahay waa tan koowaad waa sidaan sheegay oo qofka markii uu dhibaata soo gaarto ehelkiisii uu aabbihii cunuga uu ka geeriyooday ama hooyadii saxafiyadda ah ee ka tagtay uu cunugii uu waayo uu go'doomo saaxiibadii adeerada ahaa ee warbaahinta ahaa aabbihiis la socon jiray ama aabbihiis soo wici jiray ama dhalada uu ka daawan jiray ama idaacadda uu ka dhagaysan jirayna uu waayo waa dareemi kartaa qoyskaas iyo cunugaas saamaynta ay ku yeelan karto xaaskii uu ka tegay saamaynta ay ku yeelan karto marka uu dhinto oo ii sheeg uu alla oofsadana waa dareemi kartaan cidna uu dareemo waxaa leeyahay marka laga soo tago kan maamulkii warfaafinta ee madaxtooyada dareenkaas kaloo gooniga ah ka saxafi ahaan ay ii leedahay waxaan rabaa inaan idhaahdo carruurteenna ay ka geeriyoodeen gabdhaheenna iyo wiilasheenna suxufiyiinta iyo walaalaheenna adeer waxaan nahay dhinaciinna waxaan nahay garabkiinna waxaan nahay dareen joogto ah oo mar kaste in garab taagan intii ilaahay u haleeshiiyey waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka warfaafinta xafiiska madaxweynaha ugu horeeyo cabdinuur maxamed axmed oo hawshaan isaga ra'yigeedii aydigeeda iyo maskaxdeeda lahaa waxaa kaloo u mahadcelinayaa suxufiyiintii nagala shaqaynayay in aan soo helno tirakoobkay iyo dhallinyaradii saaxiibadeennii ay ka geeriyoodeen